maalinimo axada 3 luulyo 2022 ayay ka anbabaxeen madaarka caalamiga ah ee aadan cadde wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda ee Turkiga oo ay ku weheliyeen wafdi ballaaran waxa uu ujeedkeedu ahaa xoojinta xiriirka walaalnimo iyo horumarinta iskaashiga dheefwadaag ee muddada dheer ka dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Turkiga waxa ay wadaagaan xiriir diblomaasiyadeed mid dhaqan dhaqaale oo qoto dheer iyo iskaashi xooggan oo ku aadan dhinacyada ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo ganacsiga adduun lacageed oo gaaraya $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayay dawladda Turkiga ku bixisay arrimaha gargaarka iyo samafalka bini'aadanimo ee Soomaaliya 10 sano ee la soo dhaafay halka xiriirka ganacsiga labada dal uu gaaray heerkii ugu sarreeyay sanadihii u dambeeyay waana tan sababta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u doorbiday in booqashadiisa labaad ee meel ka baxsan dalkiisa ay noqoto waddanka aynu walaalaha nahay ee Turkiga casirliqi ayay caga dhigteen garoonka caalamiga ah ee caasimadda Ankara madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa oo soo dhaweyn diiran kala kulmay xukuumadda Turkiga mas'uuliyiin ka tirsan safaaraddeena Ankara iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta dalalka caalamka u fadhiya halkaasi kulankiisii ugu horreeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu la qaatay ganacsatada ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi kuwa oo la wadaagay caqabadaha ku gadaaman ku noolaashahooda Turkiga fursadaha ay haystaan iyo kuwa lagama maarmaanka ay tahay nitaalka diblomaasiyadda ay dawladdu ugu soo dhiciso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ardayda ganacsatada iyo jaaliyadda warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka oo uu xaqiijiyay inay ka go'an tahay mudnaansiinta xasilinta amniga kobcinta dhaqaalaha maalgashiga shaqo abuurka iyo dhab u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed ayaa dhanka kale u sheegay in dawladdu ay ahmiyad gaar ah siinayso xallinta tabashooyinka ay qabaan isagoo uu kula dardaarmay dhowridda xeerarka iyo shuruucda dalka ay ku nool yihiin 5 luulyo 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu booqday xarunta safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Turkiga oo uu kula kulmay madaxda safaaradda diblomaasiyiinteena iyo howlwadeennada ka howlgala halkaasi oo soo bandhigay hanaanka shaqo ee safaaradda iyo adeegyada ay u fidiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada uu la kulmay in dawladdu qorshe cad ka leedahay horumarinta hanaankeena diblomaasiyadeed ee guunka ah si waafaqsan aragtida madaxweynaha ee Soomaali dunida heshiis la ah waxa uuna faray inaysan hurdaladin inta muwaadin Soomaaliyeed oo dalkan ku nool dareemayo baahi dawladeed oo iyaga ku xiran dood cilmiyeed ku qotantay faa'iidada iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga oo ay soo qaban qaabisay mu'assasada siyaasadda dhaqaalaha iyo cilmi baarista bulshada ee SITA laguna casumay madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ku soo bandhigay faa'iidooyinka mugga leh ee laga dhaxlay iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga kuwa oo horseeday xiriir siyaasadeed bulsho iyo mid dhaqan dhaqaale oo ay wadaageen labada shacab iyo labada qaran kuwa oo badankood heshiisyada lagu fuliyay qalinka lagu duugay meerto hogaamintiisii madaxweynaha 8aad ee jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisu waxa ay sidoo kale booqdeen iskuulka tababarada kumaandoosta ee ku yaala magaalada Isbaarta ee galbeedka Turkiga halkaasi oo ay tababaro kala duwan ku qaataan cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo loo diyaarinayo xoreynta iyo difaaca dalka hooyo madaxweynaha oo khudbad dardaaran baraarujin iyo xogsiin isugu jirtay u jeediyay ciidamada ayaa u sheegay in dalkooda iyo dadkooduba sugayaan inay ka dulqaadaan cadowga diidan nabadda iyo dawladnimada Soomaaliya ayna si geesinimo waddan jacayl iyo firfircooni ku dheehan tahay ugu diyaar garoobaan xoreynta dalka hooyo waa idinku faanaynaa markaad soo noqotaan dalka timaadaan dhawaan haddii alla yidhaa xaggana waa ku kulmi doona waa idinla joognaa frontigaan idinla joogaa ilaahay idankiis ha noolaato Soomaaliya annaga markaan waxaa naga go'an aniga iyo dawladda aan madaxda ka ah
dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ii doorteen aniga oo adinkana idinku tiirsan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ku tiirsan allana ku tiirsan nimankaas inaan dalka Soomaaliya ka saarno ka baabi'ino ayaa anaga go'aano ah 6 bisha Luulyo 2022 ahna maalintii afraad ee booqashadiisa dalka Turkiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa si milga iyo maamuus sare leh qasriga madaxtooyada Turkiga ugu soo dhaweeyay dhigiisa dalkaasi mudane Recep Tayyip Erdogan soo dhaweyn kadib labada madaxweyne oo yeeshay wada hadallo gaar ah iyo mid ay ka qayb galeen xubnaha labada dhinac ayaa isla soo qaaday ajendayaal ay ka mid yihiin horumarinta heshiisyada dheefwadaag ee labada dal lana xiriira dhinacyada ganacsiga waxbarashada horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga amniga Muqdisho iyo Ankara ayaa maalintaas qalinka ku wada duugay heshiis taageero deeq gaar ah kaasi oo ku saabsan maalgelinta iyo isbeddelka cimilada waxaana sidoo kale heshiiskaasi dhigayaa in magaalada Ankara laga dhiso guri ballaaran oo ka jawaabaya baahida safaaraddeena Ankara sida aan la wadaagay walaalkay madaxweyne Erdogan dawladda Soomaaliya iyo dadkeeda waxay u arkaan dalka Turkiga inuu iyo dadkiisuba saaxiibo dhab ah iyo walaalo garab taagan dalkeena Soomaaliya dadaalka aan ugu jirno kamira dhalinta xasiloonida iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed walaalaheen Turkiga waxaan abaal weyn uga haynaa taageeradooda agar la'aaneed ee ay ku tayeynayaan laamaha amniga kabka miisaaniyadeena taas oo kaalin weyn ka qaadata barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha xoojinta xirfadaha dadkeena maalgelinta adeegyada bulshada ee asaasiga ah oo ay ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadka 7 bisha Luulyo 2022 ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib ugu soo laabtay dalka isaga oo ka soo degay garoonka aadan cadde ee caasimadda Muqdisho